dayactirka wadadan oo ahayd mid lagu bilaabay ka qaybgalka shacabka amaba iskaa wax u qabso islamarkaasina ay iska kaashadeen ganacsatada maalqabeennada iyo maamulka degmada oo isna dhanka shidaalka ka caawiyey ayaa waxaa waqti xaadirkan xaqitaan lagu sameeyey masaafo dhan 15 kiiloomitir halka ay u qorshaysan tahay in xaqitaan lagu sameeyo amaba qardayn masaafo dhan 30 kiiloomitir oo waqti xaadirkan qardaynta iyo xaqitaanka wejiga koobaad laga wado taasi oo la rajeynayo inay wax badan ka bedeli doonto dhanka isu socodka gaadiidka jidkan oo hadda ka hor caqabad weyn ku ahaan jiray dhanka isu socodka gaadiidka ayaa gu'i jiray waqtiyada qaar waxaana adkeyd in booyadaha biyaha u dhaaminaya tuulooyinka hoos yimaada degmada Mubaarak ee ku teedsan ay caqabad weyn ku ahayd isu socodka si haddaba taas looga maarmo ayaa waxaa degmada Mubaarak ee gobolkan Daawa laga bilaabay dayactirka jidkan isla markaasina lagu bilaabay ka qaybgalka bulshada shacabka ku dhaqan degmada Mubaarak ee gobolka Daawa oo warbaahinta SRTV halkaasi ugu waramay ayaa bogaadiyay dayactirka jidka wadada isku xidha degmooyinka Mubaarak iyo Qadaaduma ee gobolkan Daawa waxaana sheegeen in hadda ka hor caqabad weyn ku ahaan jiray dhanka isu socodka gaadiidka u kala goosha magaalooyinka kale ee degmooyinka gobolka Daawa waxna hadaladoodii kamid ah runtii maanta farxad weyn baa ita inaan degmada Mubaarak indhayga ku arko jidkan Hayle Silaase baa mar agafta mariyay inta ka dambaysa wax agaf la yiraahdo oo la mariyay maba jirinba hadda waqti haadir dhawaan wala mari waay abaar baa jirtay booyadii baa la soo diray booyadii meel ay maran baa waayeen intaas oo saacadood bay ku qaadataa waliba geeli baa mari waayay baa hadda aurora marka runtii ganacsatada u dhashay deegaanka gaar ahaan gobolka Daawa aad ba isil qaabeen gaar ahaan ninka la yiraahdo Xaaji Isaaq ayaa voluntarily arintan isaga abaabulay isaga ka dambeeyay isaga gacanta runtii u fidiyay fikradda isaga keenay degmadina waa ku raacday marka annaga shayb cadaana waqti haadir ganacsatadii iyo maamulkiiba mahad ballaaran baan u eelinaynaa farxadna waan u eelinaynaa runtii ina inta noo qabtaan markii hore 3 saac meesha biyo laga soo qaaday ilaa degmada 3 saac loo socon jiray hadda 18 kiiloomitir waa la sameeyay waxa noo harsan waa 20 ayaa noo dhiban marka waxaan aad u bogaadinayaa Maalsaaq oo wadadan aad arkaysaan oo dadka aad u dhib jirta waa dhagax waa meesha ugu darneed oo degmada Mubaarak oo aad arkaysaan oo saan loo sameeyay dhinaca kale gudoomiyaha degmada Mubaarak mudane Ibraahim Cabdilaahi Isaaq iyo sidoo kale Xaaji Macalin Isaaq oo kamid ah maalqabeennada gobolkan Daawa isla markaasina maalgeliyay cagaftan qardaynta iyo xaqitaanka ka wada degmadani ayaa sheegay ahmiyadda ay u leedahay Bismillahir Rahmaanir Rahiim wadadan aad u jeedaan waa wadadii Mubaarak ee isku xirta gobolka Daawa waxa isku xigtaa Qadaaduma Mooyaale iyo waxa isku xirtaa degmadan maartay labadan degmood ayaa isku xirtaa wadadani waxay u dhaxaysaa wadadan Qadaaduma ee xuduudan la nahay degmada Mubaarak xuduud ay leedahay waxayna haddaan sameeynaynaa ilaa 30 kiiloomitir ayaan anagu sameeynaynaa degmahan taana maartay waxaan ku haynaa gacan boqolkiiba 90 waxaan haynaa xaaladii abaarta ayaan gacanta ku haynaa boqolkiiba 10 waxaan haynaa xaaladii horumarka ayaan gacanta ku haynaa taana nugu kaliftay wadadan in sameeyo waxaan ugu kaliftay ceel baa ku yaala Indhaale ceelkaas oo booyad ay biyo ka soo dhaamin waysa sababo wadalaan darteeda ayaa maanta waxaan doorbidnay inaan maartay wadadan aan sameeyno sida booyadu ummadda ugu faa'iideyn lahayd sidii biyo looga soo qaadi lahaa wadadani ayaan u doorbidnay inaan sameeyno taana maartay nin ganacsiga oo khayr Allah siiye aan ka qaadanay cagaftii annagana maartay degmahan kaalintii shidaalka inta baan dhameystirnay ayaan wadadan ilaa 30 kiiloomitir ayaan sameynteedan ku jirnaa tan wadadan aad u jeedaan ilaa dargigii ayaa ugu dambeysay sameynteedii laakiin maanta waxaan nasiib u yeelanay degmada Mubaarak ahaan inaan sameeyno wadadani isxilqaan shaqo oo shacaba iyo maamul degmo ah inteena wada tashanay ayaan wadadani maanta kaalintani aan gaarsinay heerka ay taagantahay indhiina macallimiina waa taad u jeedaan muhiimadda aan qaadanay go'aano inaan maartay aan ugu faa'iideyn leen wadadani cagaftana ay noo timaaday shidaaladii iyo wax loogu talagalay dhamaan mishaarkeeni iyo waxaan doorbidnay iyo howlfulinteeni intaba inaan isku darro ayaa marka wadadani shidaal qaabkan ugu faa'iideyn leen shacabkeeni abaarta jirto iyo baahida shacabku u qabo